ahaantii waxaa farxad gaara noo ah go'aankan beeshan taariikhda leh ee hoggaanka u ahayd siyaasadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay caawa ku soo xushay laba xildhibaan oo xul ah waxaan qabaa labadaa soo xusheen waa xul ee xal ma aha waxa ururiseen aqoontiinii iyo waayaaragiinii gaar ahaan maxamed faarax gurey saaxiib baanu nahay waanu kala yarnahay laakiinse laba qof oo aad u saaxiib ah ayaanu nahay weliba family friends ah si gaaraysna waxaan aad ugu mahadnaqayaa ninka dhalinyarada ah ee da'dayda ah ee Dr. Mustafa oo isaguna golaha deegaanka loo soo xushay reerkani taariikh buu ku lahaa sumadda siyaasiga ee dalka marka maanta waxaan leeyahay idinka macallin ku ahaa siyaasadda dad badan hadday idinka dambeeyeen macallinku wuxuu ogolaadaa ardaygiisu inuu siyaasi noqdo idinkuna ogolaada bulshada kale ee siyaasadda soo gashay inay wax siisaan kuraasna waa doonayseen oo qaar sarena waa qabsateen bal wax ka taga baan leeyahay insha Allah taala